muddo badan laafafkayga waxaad ka maqlayseen annaga keligeen ma joogno meeshaan wad fahmi weyseen maantay maxaa la isku haystaa TikTok iyo Clubber maxay isku haystaan marla maxay isku haystaan TikTok iyo Clubber TikTok China laga leeyahay China lagama isticmaalo waa mamnuuc sababtoo ah access wuxuu u leeyahay mobilkaaga waxa ku jiro dhan informationkaaga datadaada waxaago dhan inuu akhristo oo baaro ilaa bangi accountadaada iyo emailadaada u dhici kara oo option oo u leeyahay haddaba Mareykankii waa xanaaqeen waxay dhaheen amniga haddaan idinla sugi karin oon annagana aan ka shaqayn karin sirdoonka Mareykanka haddaan access loo siin karin ma wada shaqayn karno waddankeena waa ka mamnuuc waxaad xasuusataan Facebooka FBI-da iyo MI5ka Ingiriis kulli inay wada shaqeeyaan oo access u leeyihiin akoonkay rabaa inay gudaha u gali karaan Clubhouse waxaad marqaati ka tahay in Clubhouse ay leeyihiin sirdoonka Mareykanka haddaba optionka TikTok dad baa fikradaha keensaday dad baa furtay China waxay ku qasabtay waddanka inaan laga isticmaali karin haddii kale access loo siiyo Chinaiska waa soo saareen laakiin datadaadii emailkaagii informationkaagii gudaha u galayaan wax ku qarsoon ma leh hebelaa la soo qarxiyay heblaaya la soo qarxiyay sirteediya banaanka la keenay because marka horeba sirku ma qarsooneen abka adaa soo degsaday ababka la iska soo degsanay ma waxa u maleysaan wax fiican haddaa rabtid sir inaad qarsatid waa inaad leedahay mobile kale waa inaad mobile kale haysataa oo dadka wixii kartid shaqooyinkaaga informationkaada bankiyadaada akoomadaada wixii app iyo email iyo Facebookna aad u leedahay mobile kale oo wax access aynan ka heli karin sawiradaada bankiyadaada emailadaada qoraaladaada whatsappyadaada messageyadaada waxa loo tartamayo lacag maahane waxa loo tartamayo waddankeena dad walba ayaa TikTok soo degsaday qof walba TikTok la yimid dadkii dawladda u shaqeynaya TikTok wato informationki macluumaadkii dawladda China gacanta ku haysaa Clubber ayaa ayagana Mareykan waxay u keensadeen inay informationkooda iyo Mareykankooda iyaga leh inay gudahooda ugu shaqeyso oonan access dambe iyo ciwaano kale oo fake loola soo galin marka dagaalka socdo waa taas daa wax fahmi kartid haddaad IT ku fiican tahay haddaad aqoon-yahan tahay lacagaa la isisiina life haddaa ku jirtid lacagaa ku qaadane xayeysiimahay ka mid tahay soo dhaweeshada lagu soo dhaweynayo xayeysiinta aad samaynaysid dadka aad keenaysid lacagaa lagu siinayaa maalmaha ugu horeyso baasha markay kala kacdana waxa waaye lacagna waa laga sameynaa macluumaadkaaga iyo ciwaankaaga iyo emailkaaga iyo mobilkaaga gudaha loo galayaa laakiin annaga Soomaaliyaan nahay hadda Soomaali nahay sir ma qarinaa baska markaas saaran nahay waxa gurigeena ka dhacay informationkii waxa dhan markaas qof markaas aragta u sheegay maqaayada markaa imaadid wax walba guriga ka socdo macluumaadka informationkaaga saaxiibada ka sheekeene annaga sir ma qarinaa manihin dad dalka iyo diinta lagu aamini karo hadda Soomaalina wax aanan hubsan aan shabiska dhahna